xulka qaranka saad ogtihiin oo ka ciyaaraya adduunka ka ciyaarayay oo markay baxaan guulo badan soo hoynayay iyagoo calanka Soomaaliyeed huwan soo ma fahmin folka dansiga naftigooda ciyaaraha kala duwan ee dhaqanka Soomaaliyeed waxaa soo idin dadkii sameeyay dadka hadda jooga ka aqoon badan hadii aqoon marka la yiraahdo laakiin hadda aqoon wax ma tarto aan lahayn niyad wanaagsan iyo Soomaalnimo iyo wadaniyad aan lahayn waxaa intaas dheer ciyaaraha atleetigada feerka dabaasha bingonka teeniska orodka basketka oo weliba waa ogtihiin inaan dhowr jeer galnay cabdibile iyo karaaciin maxaa nagu dhacay marka waxaa nagu dhacay tariin ordaaya yaan ahayn tariinkii baa direel noqday oo qad ka baxay markaasuu wuxuu ka dhacay qad yuu ka dhacay 2 jeer 3 jeer u gadoomo marka tariinku gadoomo haddii ogaada dad waa dhimanayaan tariinka dad waa dhaawacmaya jabayaan dad madaxa lagu dhufanaya waa waalanayaan laakiin darkooday qabaan dad waa iska cararayaan dad waxay isku dayayaan tariinka inay toosiyaan kuwa kale lugaha ku dhagaaya kuwa waashaa lugaha ku dhagaaya dad waa ka soconayaan inay wax dhacaan ma boodaanba waa ka tageen dad ka dhaawacana dadka dhintay baaranayaan dadka dhaawacan iyo caawinayaan oy maxaan ku rahdaa istaajinayaano dhabiibayaano oo isku dayayaan inay ay siiyaan first aid ay siiyaan marka society-gu saasaan noqonay marka saas ayaan noqonay marka sidee uga bixi karnaa hawshaas na haysata tariinkaas dhulka yaalla oo loo baahan yahay in la toosiyo anu keligay ma toosin karo wasiiradeeda lama toosin karaan keligood dowladeeda lama toosin karaan waa tariin dheer oo kumanaan qof ay ku dhex jiraan ama millions shaqo badan u baahan yahan marka dadkoo dhan waxaa raba inay wada toosiyaan marka waxaan ka tegay oon ilooday oo tariinka nala saarnaa tariinka dareelka noqday nala saarnaa ciidamadii la asaasay 1960 ciidamadaasi sida hay-adaha dowladda iyo waxay yihiin ciidamadaasi inay ilaaliyaan intaan sheegay oo ay difaacaan oo ay ka difaacaan dad banaanka uga imaanaya oo dhibaateyn kara ciidamadaas marka sida lagu xuli jiray waxay ahayd si Soomaalnimo ah oo nidaam ah oo isku dhafan oo aysan cid gaar ah aan la hijirin geerida oo Soomaali oo dhan ay u siman yihiin difaaca dalkooda ay u siman yihiin waxaa lagu tababarayay oo tababar lagu siinaya wadaniyad iyo tababarka sax ah waxaa lagu xulayay qaabka ay yihiin caafimaadkooda dherarkooda quruxdooda yaa lagu xulayay iyo akhlaaqdooda iyo caqiidadooda yaa lagu xulayay saasaa lagu tababarayay hadda marka waxaasoo dhan aan soo celinaa la rabaa marka dadkeedii waa joogaan oo dadkii hore ka badan oo ka aqoon badan oo ka ilbaxsan laakiin tariinkaasi kuwada dhex jiraan marka